Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalahayga qaaliga waan ii salaamay meel walba adduunyada ka joogtaan isku soo noqdo wanaagsan waa walaashin ifraax iyo video kale maasha allah aad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga intii soo raadisay 2 isbuuc video mani soo wadaagin sababtuna waxa waaye aad u mashquulay xilliga aan shaqay jiray mooye xilli ka duwan shaqada bilaabay marka waxay ugu noqotay in routiinkaygii hore aan bedelo routine cusubka aan la qabsado iyo waxyaabo kale oo fara badan oo ku mashquulay marka waa idin raali gelinayaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah videoyaal badan waa idin soo dhigi doonaa aan duubay aan waqti u waayay inaan soo geliyo insha Allah waan ila soo wadaagaa marka maasha Allah asxaabteyda qaaliya sidee tihiin I hope in caafimaad qabtiin insha Allah marka maanta videogan soo dhiga waxa waaye habeenkii waxaan sameeyo galabtii marka galabta guriga jooga hadda waxa waa 12 saac 12 saac amal waaye marka waxa waa qolkana kala hagaajinaa fadhiga insha Allah marka waa ila arki doontiin geedkeenin waa kana dadkii la socdeen hore asoo yariisa soo gaday hadda maasha Allah wuu weynaado wuu koreeyaa ku dhahay waa laga fikiraa biyaa lagu shubaa waa la jaraa hadoo wax yaris laanta qalasho waa la tuuraa maasha Allah barkimahana markas su'aalkii maanta asxaabay barkimahan waxaa keenay xitaa dukaanka rustaha hadii kale waxaa ka heli kartaan IKEA meel badan ku yaalo laakiin rustaha oo ku soo arkay maalin hore Snapchat-kana waan soo geliyay marka maasha Allah I hope in adiga ka faa'iidin oo dhageysatiin videoga markasta waa ku sheegaa meesha ka soo gada barkimaha federaalka ku jiro ama marada lagu jiro waxaa ka soo gadi kartaa Wish dukaanada qaarkood way hayaan laakiin inta badan waxa ka dalbadaa China ka dalbadaa marka maasha Allah inta waxa ku soo diyaarsanay decoration yaris geedkan oo unsiga waxa ii keentay gabar abaay hadiyad iyo keentay mar hore wallahi aad u maasantaa walaashay maasha Allah inta waxa ku isticmaalay wax yar oo decoration voskas waxa ka soo gaday Simobler waxa miiskii saaran waxa ka heli kartaa dukaanka ristaha everything oo gurigeyga u baahatid ama wax aad ka heshid isoo qor commentiga waa idin kaga soo jawaabaa insha Allah hadii aad awood u hayo ama aad waqti ahayna waa idin soo gada post ayaan soo dhigaa insha Allah dad badan ay weydiiyaan runtii barkimahaas intee ka soo gaday please dhageysta videoga insha Allah waan ka bogan doontiin maasha Allah asxaabta qaaliga saa arkaysaan hadda waxaa la gaaray xilli dambe marka hoosh waa soo dhameystay babygana waa seexiyay marka uu hurda intuu hurday waxa rabaa inaan ka faa'iideysto oo waqti kaliya iska qaato marka insha Allah saa arkaysaan hadda waxaa soo shitay
shumac yaris soo shiitay qolka saan u yaalaa miisid waayo kuna maasha Allah aad u jeclaan halkan iska soo dadamiyay kaliya markii soo fadhiisanaa waxaa maanta bagi plan gareysan inaan aqriyo book oo hore u aqrinayay marka buugayga ayaa dhameysana aqrisanaa insha Allah buugaasna wuxuu ka hadlaa sida ku gaari lahayd hadafkaada ama guushaada sida jeceshahay si uu yacni uu ku siinaa motivation ku siinaa sababtana waxa wax kasta oo horta oo lagu dhibtoonin laguma dheefsado Soomaali hore u dhahdaa marka wax kasta oo haminaysid waa inaad dadaashaa si aad ku gaartid marka anina wuxuu siiyaa motivation aad u fiican waan idinku recommend lahaa in aad akhrisatiin marka buug aad u fiican waaye wax kasta noo qoran oo nolosheena ku dhacaysana waxa waaye wax Ilaahay noo qoray wax oo anaga ka bedeli karna ma ahan laakiin bini'aadanka waxa waaye in la dhahay dadaal Ilaahayna wuu kula jiraa si oo u gaartid guushaadana wax kugu xiran tahay oo kaliya inaad dadaashid ilaahayna tala saaratid adduunkan qof walba oo guul gaaro guusha uma gaarin si raaxo leh qof walba guul gaarane wuxuu gaaray dadaal iyo juhdi badan oo galiyay wax walba oo aad rabtid inaad baratid hadaa rabtid inaad wax baratid hadaa rabtid inaad shaqo heshid ama wax kasta oo maanta isleedahay niyadaada waxaas alla leh waa inaan sameeyo waxay u baahan tahay juhdi iyo dadaal inay ka go'an tahay in naftaada ay aamintid kalsoonida nafta waa wax aad iyo aad u muhiimsan in aad ogaatid qofka adiga aad tahay marka aad ku leeyahay inaad ogaatid qofka aad tahay micnaheeda waxa ka wadaa wax walba caqabad kaaga hor imaan karo in aadan dheg jalaq u siinin hor ugu socotid in wax kasta oo ka hor imaado negative people-ka wax kasta oo dunida kaaga hor imaado oo lagu dhaho waxa ma sameyn kartid inaad ka soo horjeesan kartid oo dhigi kartid I can do it waa sameyn karaa wax walbana waa qabsan karaa tidaas ayaa horumar lagu gaaraa iyo inuu Ilaahay kula garab galo oo aad istaagtid waalidka ka duceysatid ducada waalidka waa shay aad u muhiimsan marka insha Allah taasna waxaan rajeynayaa inay motivation idin noqoto hadda waxaa soo qaatay buugayga qalinkeyga waxaa jeclaystay inaan qoro waxyaabaha aan sameyn lahaa baritoole oo aad u muhiimsan marka laga reebo cunto karis iyo waxyaabahaas iyo guri hagaajis iyo magu qorayo markasta waa sameeyaa waxaasna wax muhiim ma aha laakiin waxyaabo qaarkood muhiim ah jirto aan rabo inaan qoro baritaa sameyn lahaa insha Allah waa ka insha Allah waanan ku mahadsantihiin daawashada videogan haddii aad videogan soo gaartay hanaga iloobin inaad subscribe dhahdid like dhahdid comment insha Allah inta video kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa nabadgelyo